wabarakaatu walaalo. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaa walaal Saciid Xasan Ibraahim la yiraahdo. goobtan maxaad ka tahay adiga? goobtan aniga xogeenan ka ahay kaam Ciise la yiraahdaa kaamkan xogeenan ka ah. Okay, gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenka labada waa maqan yihiin. gudoomiye ku-xigeenkii waa joogaa, gudoomiyihii xagga gaalkacyo naga jira hadeer waa naga maqan. dhanka magaaladu jira. xaarxaar waa meel deegaan gaalkacyo hoos taga waaye, laakiin gaalkacyadii maaha. Okay, waa deegaanada gaalkacyo hoos tago. ugu horeyn waad ku mahadsantahay maadaama aad waqtigaada qaaliga ah hurta maanta oo aad isniin rabtid warbixinta sidii aan u soo maqlay aan ku soo dhageystay codadna uga soo qaatay dadkii ku noolaa xaarxaar waxay ii sheegeen dhibaato badan inay ku qabaan. dhibaatadaas mid dhaba ma taha? walaal horta alxamdulillaah ilaahay xaggiisa dhibaato kama qabno. roobabka iyo nimcada ilaahay uu keenayna hadda kama naxayno, laakiin nimco waliba nusqaanteed leh. dhibaatooyin waa iska jiraan xagga bini'aadanimada ah oo ay dadka qabaan, sida hooyga, suuliyada, waxbarashada, caafimaadka, waxyaabahaasaan dhibaato badan ka qabnaa. tusaale ahaan haddii xagga caafimaadka oo kale aan ka soo qaado, hooyada hadda xaarxaar ku umusho saacadda aan taagannahay ma laha goob oo healthy boss ama goob caafimaad oo lala gaara ma laha oo MCH shaqeynaya oo toos ama lahan wax MCH oo shaqeynayo xaarxaar ku yaalo ma laha. 12 kilomitir ay noo jirtaa xaaran gaalkacyo ma laha, isla markaas haddana wax la yiraahdo ambulance oo markaasba ka jawaabo oo qaado. wax gaadiid oo geenaya ma lahan. gaadiid geeyo ama ambulance ha noqoto ama gaadiid caadi ha noqoto ma jiro. taas waa dhibaatooyinka ka jira ay ka mid tahay. waxaa ka mid ah deegaankan roobab badan oo mihigaan ah ka dhacay isbuucan gudihiisa. masquulihii ka dumay, guryihii waa ka dumeen, guryaha waa buushash yaryar oo cawshado ah sida aad aragtaan. ma laha haddana waxay adoo xataa kormeer ku yimid oo balwar maxaa idiin gaaray yiri, ama maamul ha lahaato ama dawlad ha lahaato ama hay-adaha lahaadaana wax weli hadda wax gacan ka geystay ma laha. maamulkaas shalay noo yimid waa indheeyeen waana naga tageen. wixii ka horeeyayna wax hadda yimid ama wax ka qabtay ma laha. saad aragtaan hadda bacaha ma haystaan, hooygii qaarkiis roobka dudumiyey. gabdhaha qaar umulaha ku jira, qaar ilmo yaryar jira, dad waayeelaa jira, dad xanuunsanaa jira. intaba markii roobna da'aan baahidaasna iska jirto waa dhibkooda waa garan kartaan. marka welina wax qabada ma hayno. Okay, dadka bulshooyinka Soomaalida oo ku dhageysanayso codkaada maqlaysa maxaad jeclaan lahayd inaad ku codsatid? bulshada Soomaaliyeed ee dadka muslimiinta ee islaamka ah dhammaantood waa salaamaya 114. waxaana ka codsanayaa dadkan walaalahooda ee ku dhibaataysan xaarxaar ama community ha ahaado. xaarxaar 3 qolaa degan. qolo waxa waaye waa deegaankii meesha loogu yimid, qolana waa ilbiisadii wadanka gudihiisa ka soo barakacay, qolana waa qoladii abaarihii 2017 xoolaha ay ka dhamaadeen oo xaarxaar deegaano laaga sameeyay oo fariisimo laaga dhigay. saddexdaas degan, saddexdii hadda waa isla daalan yihiin, waa isla caafimaad la yihiin, waa isla baahan yihiin, waa isla waxbarasho la yihiin. waxbarasho hal goobo waxa ku taala kuleeshka la yiraahdo. kuleeshkana dad yar dhigtaa oo ilmo agooman u badan. inta kale waa iska waxbarasho la'aan. iskuul yar oo ay maalgeliyaan jiray hadda ka hor qolo la yiraahdo qoladii Care International oo al-mustaqbal la yiraahdo. iskuulkii macallimiintii hadda wali waa sii wadaan, laakiin wax maalgeliy iyo wax macallimiinta mishaar ku siiyay midna ma jiro. dad yar waayana dadka hadda wax ka barto oo waxbarasho ku filan deegaankan ma laha, ma ahan. ilaa 17 kun oo qoysana lagu tilmaamaa dadka meeshan degan. marka haddii ay maamulka galmudug tahay, haddii hay-adaha madaxa bannaan ay yihiin, haddii ay yihiin dadka islaamka akhniyada Soomaaliyeed wax haysta Ilaahay wax u dhiibay, waxaan codsanaynaa dadkan walaalahooda tabaalaysan in wax lala soo gaaro. sidoo kale markii aan maqalno dawladda federaalka waxaas la siiyay deeqdaas soo gaartay kambil markaan maqalno waa yaabna waxaan iraadnaa xaarxaar Soomaalida kama tirsanamaya, deegaanada Soomaalida kuma taalamaya, marka mudug kuma taalamaya, galmudug kama tirsanamaya. waa yaabna hay-adaha galmudug ka shaqeeyo oo intaas macnaa ilaa 28 ilaa 30 hay-adooda lagu qiyaasaa. waa gaaban tahay hay-ad si toos hadda wax uga qabata halkan waa yar tahay, waa mid ama labo. marka waxaan codsanaynaa in indho gaar loo yeesho oo fiiro gaar ahaaneed loo yeesho oo dadkan tabaalaysan wax lala soo gaaro si degdeg ah. intaasaan codsanaynaa dadka walaalka ee islaamka waa salaameynaa. islaamka wax haysta oo aqniyada waxaan codsanaynaa walaalahood tabaalaysan waaye dadkan inay wax u qabtaan wax la soo gaaraan. kaamamka qaar xitaa biyo gelin uguma jirto, musqulo ma haystaan,
kaamam yara hadda sida kaamka dariskayga oo kale iyo kaamka inta iga jiro iyo kaamka hadda aan dhex taagannahay mid biyo ay ku jiraan ma laha waa inay kaamanka kale u doontaan oo gabdhaha dusha ku soo qaadaan gabara umule biyo ma haysato waa ku khasban tahay biyihii waa baxaysaa soo gabara xaamilo ah ninkii shaqa inuu aadaa laga yaabaa marka waxaasoo dhibaatay waa iska jiraan marka idinkana waxaa idinka codsanaynaa haddii aad tihiin saxaafadda madaxa bannaan ama dadka soomaaliyeed ee saxaafadda ee wariyaasha ah inaad baahida aad indhihiinna ku aragteen say tahay ugu gudbisiin dadka walaalaha soomaaliyeed ee amana dhegaysanaya amana daawanaya waana mahadsantiin waa idiin salaamaya